الرحمن الرحيم waxaan ku dul istaagayaa khudbadihii ay kala jeediyeen maanta madaxweyne xasan sheekh maxamuud shirka ka socday halkaas xayndaabka xalanaya cidii ay guusha raacday waxa kale oo muuqaal kugu dul istaagaya madasha calaacalka 15 May hala gaaro 15 May hala gaaro maanta waxa hadana bedeshay Facebook intay soo istaageen iyo calaacal madaxweynihii hore ee Soomaaliya waa ku dul istaagay Saciid Cabdullaahi Dani lafkiisa oo sheegay in hadda ka hor xasan sheekh maxamuud uu soo dhuuntay oo diyaarad u soo raacay oo qol la galay oo la qudbasiraystay siyaasiyiinta ummadda Soomaaliyeed waxa wadigaya ninkaas Saciid Cabdullaahi Dani ama mulaxa jin waxa ku jira khaniisa hala sheekaysanina hadda la sheekaysato hadhow intuu public soo istaago ba waxa la wixii dhaxmaray buu sheegaya hadda ka hor yaa xasuustay soo yiri farmaajo hawiye ila xantay maanta wuxuu maraya xasan sheekh maxamuud baa ummadda Soomaaliyeed ila xantay markii la qudbasiraystay oo codadkii daarad laga qaatay oo afka ciida loo daray oo xamar ku bahdilan yahay fariin aan u wado laamaha ammaanka gobolka Banaadir oo khatar ah iyadana waa dul istaagaya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan kaloo muuqaalka qodob kale baad ku dul istaagaya xaaladda guud ee Puntland say noqon doonto iyo sida ay wadada burburka ay cagta u saartay caawana clipka meel ku qoray Saciid Cabdullaahi Dani haddii ay Puntland ka dambayso meesha aan ka taabtay ay baa ka taabtay iska goo wax badan oo garaadka uu sheegay oo aninka ka sheegay haddaad aaminsantahay inay run tahay tanina run bay noqonaysaa haddaad aaminsanayna maalinta ay dhacdo baad waxaad oran doontaa walla ninka garaadka xogogaal buu waxa muuqaalka qodobka ugu dambeeya xasaasiga ku dul istaagaya boorame oo laga diiday ay diin may in lagu qabto isaaq dad ka caqli xun oo Soomaali ah weligeed ma arag reer ka caqli xun oo ka damiir xun oo kaliita ma arag shalay bay ahayd inay magaalada Muqdisho cuqdad ugu qaadeen siyaad baraan ay ka soo duulay oo duqeeyay dhaawacyadayadii iyo meydadkayagii annaga aasanay waana la dhibaatay bal dadka ay dhibaateeyeen oo boorama ku dhibaateeyeen bay waxay raaceen intay u tagaan ay ku dul niikiyaan oo ku dul jaasaan cirra lafkiisa oo halkaas imaaraadka yaala oo xaaladiisa caafimaad laga dayrinayo xanuunka kansarka oo ku sii faafaya oogadiisa oo dhan isagana waa ku dul istaagaya qodobkayga u dambeeyo way waxaan ku hormarayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo sheegay 2027 ka hor inaan laga wada hadli karin wax doorasho ah dalkan qof iyo cod waxaan ahayn inaysan ka dhacayn waxa la madaxweyne kaama xiniyo badna madaxweyne siyaad barre kaama xiniyo badna Ismaaciil Cumar Geelana kaama xiniyo badna inaa Uganda kaama xiniyo badna waa ka qaban kartaa dalka Soomaaliya doorasho qof iyo cod ah shirka beesha caalamka inaad libin ka keentay oo xayndaabka ay ku ordayeen oo warka jooga warka alay filla Soomaaliya ku wada hadal leh war sumcadda Soomaaliya xumeynina war Soomaali baan nahay war qabaa'ilada Soomaaliyeed oo dadka caasimada wada leeyahay war talada Soomaaliya dad wada leeyahay may xaraan arabna may beesha caalamku niman og xataa ma aha inuu Mareykanka lacagta goostay safiirkiisa la baxay Soomaaliya leeyahay isku tashta shidaal la qodanayo waxay rabaan in barti la joogo oo lagu noqdo doorashadii hadda uu lafta gareen qabanayo kale madaxweyne barta taagnow ha ka dhaqaaqin qolada beesha caalamkana qoladan waxa ay isla gariirinayso oo leedahay shir ma fashilmin waxa ay diideen kaliya markay yiraahdeen maxaa kugu aaminaa xas sheekh oo doorashada ilaa adaa maamulay inuu yiri guddi idinkuna soo magacaaba beesha caalamkana soo magacawdo dawladda federaalka waa soo magacaabaysa waxaana madax looga dhigayaa ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre intaas waxa diiday qoladan xaabaha weeyay xaabadaarad oo yiri ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre aduu kula shaqeynaya ma aaminayno waadin waxay ogyihiin ra'iisul wasaaruhu inuusan munaafiq ahayn waxay ogyihiin ra'iisul wasaaruhu inuusan madaxweynaha la qadabeynay saasay u baqeen oo u soo kala yaaceen haddana iyaga waa dalbanaya in mar kale la isku soo noqdo laakiin xasan sawirkiisu waa cad yahay halkaas uu taagan yahay qof iyo codna kama tanaasulay haddaa ka tanaasushin madaxweyne waxaan ku leeyahay aniga iyo shacabka Soomaaliyeed kuwa Puntland kuwa Jubbaland kuwa waqooyi bari kuwa waqooyi galbeed kuwa gobolka Banaadir kuwa Jubbaland kuwa koonfur galbeed dhammaan xisbigaaga iyo doontaada waa ka deganayna doontaada anagu cunno kuma saarnin doontaada xoolo kuma qabno xil kama rabno Soomaaliya badbaada oo aan nabad ku haysano caafimaad waxbarasho doontaada u saarana nimanka xaabaha weeyay iyo xaabada aroodna waa gondomiyadii shalay isticmaali jirtay halka iyaga warkooda isaga xir intaas anigu tala aan ku sinay warkooda inaa intaas isaga xirto waxaan dul istaagay calaacalkooda 15 May hala gaaro 15 May hala gaaro 15 May hala gaaro waa la gaaray haye maxaa dhacay madaxweynihii hore wala soo fariistay maanta madaxweynihii hore waxaan leenahay madaxweynihii hore xasan meeqasan alcaay gurguurte buldaanana xasan baraf xasan qoslaaye
حسن لو قرف ما قال لها الشيخ محمود ما حسن باعي هذا ونن غير كيسه وكعد كذا يروح كدميسا على البيد كغا صارت waxa igu darnaa kiim ilaahi wuxuu yiri xasan sheekh maxamuud baa qoligu xirtay diyaarad baan u soo raacay 4 saacadood buu qoligu haystay nooma sheegin wuxuu ku sameeyay waliga gabar ma qod basreysatay ma ku soo dhuumatay madaxweynihii dhamaayay Puntland baa la qod basreystay madaxweynihii dhamaayay Puntland baa xamar qol la galo la qod basreystay wuxuu 4 saacadood diyaarada u soo saarnaa oo uu bariyay waxa weey booskaas xad uu ku fadhiyo ninkaas Xamza Cabdi Barre weeye oo aan ka bangareysan oo aan iswaalin oo aan cod daarood dhicin kan codadka daaroodna waa laga qaatay kuwii Jubbaland baa la marsaday kuwii Puntland ay soo dhaceen dadka ka soo markaas waka wali diyaaradaha u sii socday u sii dhuumanay qof kasta oo siyaasi Soomaaliya waxa wadigaya inuu samilaa xamar dan wax bareefada kala sheekaysan sababtoo ah ninkan jin khaniisa ku jira hadhow xanaaqaya dabeecad male wuxuu rabo waayaya uu ku soo qarxinaya si toos ah hadda koor beed markuu yahay farmaajo maxamed cabdullaahi farmaajo baa wixii ila xantay hawiye ila xantay isaga soo qarxiyay waa nin ay bareefad ku wada hadleen عاول حشيخ محمود واحد بدن بدك بينو شيء بنتي سوان قرحنايا وحو دقميا سيدي نين ببلك فيغره وحو دقميا سيدي اي شيء ويل يوتيوبر marka aad leeyahay ninkan waa tiktoker ee ninkan waa youtuber wallahi dad baa leeyahay laakiin wiya sababtoo ah dhaqanka youtuberada iyo tiktokerka saaxiibtinimada waxay ku dambaysaa tii dumarka kale waxa xigta bari silway ninkan waa noocaas maanta saaxiib ku leeyahay intaasan sakarbaashan amlaax 5 sano la shaqeeyay barxadda garow u taagnaa islaanka iyo sultaankayga waan ka balaari anoo isaga qof ka dhigaya marxanti alla ka ahayd maanta halkaas kala taaganahay 3 sano wuu xukumay markuu laaluush kastay gudayay wali miyaa iga maqashay mulaaxa ay soo wacay wali miyaa iga maqashay laakiin waxa ogtiin way jiraan oo ah in la wada hadashiyay wada hadal inuu dhax maray wada hadalkina waa aniga dhankayga ka socon waayo aan diiday taas idinku waa haysan xogta laakiin wali miyaa iga maqashay mulaaxa ay soo wacay ama ereyga igu yiri ama saa yiri wali ma iga maqash boqolaal kun xog baan dhax martaan isag laakiin waxaan ka xishoonaya nin aan kala fikir duwanaan oo shalay saaxiib ahayn inaan bareefadkiisa ka hadlo war waxaan hala sheekaysanay siyaasiyiinta Soomaaliyeed ninka jii khaniisa ku jira intii ugu liidatay horta daarad ka soo hartay waxay ku leeyahay hadda ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre meesha shirka ma fadhiyo meesha shirka mulaaxa daarad kuma talay oo farmaajo daarood maaha oo magaalada Muqdisho ma joogo shirka maxaa looga yeeri waay waa isaga xamar ku dhax bahdilan war ninka Xashiikh Maxamuud fulay maaha farmaajo kalena maaha mulaaxo kale oo leerarka ka baqana maaha ana sacad ninkani madaxweynihii Soomaaliya markii laga tago waa nin hawiye ah isaga iyo labadiisa xaas iyo ciyaalkiisa 30 sano oo dalkaasi la qaxayay oo magaaladaasi burbu sababtu idinkaga lix jecel badan yahay way xamar oo uu amaanka uga dhigayo oo seexan laayahay oo meel kasta checkpointiga u dhigay oo qalab wax lagu baaray uu keenayo oo dadkaas nabadoodii iyo sharaftooda ay ugu aamineen oo hooyooyinka Soomaaliyeed ay u duceeyaan idinkuna aad la daba joogtaan dhul buu dumiyay halkan uu dumiyay saas la yeer xamar quruxdeeda iyo bilicdeeda aad u jeedo ma aragtid kuma faani kartid laakiin waxa la aaminsantahay waagi siyaad barre qurux badneed xamar maanta qurux badanta waagi siyaad barre iyo magaalada Muqdisho maanta oo hawiye joogo oo dadkii laha joogan oo madax Soomaaliyeed ka yihiin oo madaxdeeda yihiin maanta qurux badan tahay waana ka raysatay dad uqdad u socda iyo argoosi laakiin ninka nin baarlamaanka oo adka Cabdullaahi Sufeed markii baarlamaanka lagu yiri oo carray farmaajo dabadiisa buller biq ka yiri marka booday oo carray oo doorasho ku orday mulaaxa way ka leerka ka baqaya ninkan intaas midna mana baqo mana xishoodo mana jixinjixo waa ninkii Itoobiya oo tago miiska u garaacay badda ka dhigay Kenya maxkamadda waa ninka maxkamadda geeyay intaas dalkaas inta maamul goboleedka ninka dhisay waa nin waxa uu raba garanay Cabdullaahi Algaas buu yimid itanaasul suntu kariyo sidii naagiisa uga fiiriyay buu la yaabay oo ku yiri maana aniga ku tanaasula maantana isagii baa ergey u magacaabay waa nin og waxa uu raadinay marka waxa dhaqanka xun ee sidii naagiga u dhaqmaya waa kuwa siyaasiyiinta sheeganaya xaabaha weeyay xaaba daarood Cabdiraxmaan Ashkuur waa arkiis maalintu akhrinay Sheekh Shariif waa arkiis madaxweynaha u tagnay markaas madaxweynaha hadda u tagto waxa kala soo hadashay waa bareefad dadku waxay kala hadlaan waa bareefad adaan bareefad maxaa yeelataaba de qof halka iimaanka kaabad ku dhufsaday oo Ilaahay ka xishoon waayay oo umadu mas'uulka ka xishoon waayay miya qof bareefadka ilaalinay oo xaraan uu bartay inuu saa wax uu daliiqo
خير الله يدسي waxaan u diraya fariinteeda u dambaysa laamaha ammaanka gobolka banaadir khaasatan taliyaha booliska Soomaaliyeed baa u diraya Asad Cismaan Diyaano iyo taliyaha booliska gobolka banaadir Macalin Mahdi magaalada ammaankeeda aad u sugan magaalada ammaankeeda aad u sugan xogo waxa ay soo gaaraya nimankan xaadaha wiye iyo xaabadaarood ay rabaan ammaanka caasimadda inay ku fashiliyaan waxay rajaynayaan inay hoobiyaashii iyo qaraxyadii inay dib u soo noqdaan madaxweynuhu idinku ammaankeedu ku aaminay waa ogahay Asad Cismaan Diyaano waa nin khibrad ciidan leh waa nin khibrad ammaan leh Macalin Mahdi kadalik ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kadalik waxa kale oo fariinteeda iyadana aan ka faa'iideysanay taliska booliska aanu sameeyaa xafiis waxa igu badatay dhowr jeer marka ay ciidanka booliska hala qorto oo shacabku hays qoro oo shacabku ha ka qayb qaato dawladnimada in meel la idinku soo maro iyo xafiis boolis oo dadka shacabka ah ama gorgor ama haramcad laga qoro inaysan jirin fadlan fariimahaas baa aad igu badanaya dadka meel laga qoro iyo wacyigelin dadka isqoraya inaad samaysaan baa idinkan idinku bogaadanaya askari kasta oo muuqaalka daawanaya waxaa leeyahay amar waa haysataa taliyaashaad amar waa ku siiyay ammaanka aad ku sugto wiilow 2 indhood yeelo wiilow 3 indhood yeelo oo wiilow nimankan xaabaha wiye iyo xaabadaarood wax kale ma rabaan in magaaladaas qaraxyadii ay soo noqdaan magaaladaas ammaan darro ku soo noqoto si kasta oo loo fashilin kara ammaanka gobolka banaadir iyo caasimadana inay u fashiliyaan kale booliska shaqo fiican waa haya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeedna shaqo fiican waa haya magaalada daafeeda iyo magaalada duurkeeda iyo shabeellooyinka argagixisada ku baxsanaya iyo taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed laakiin midda meesha taala waxa ay tahay ammaanka caasimadda shir gaar inta laga yeesho si gaar ah oo sidii hor ka fog ha loo ilaaliyo waxa kale ma rabaan waxay go'aan ku gaareen caawa shirkii ka dhacay Jazeera in ay ammaanka qaab kasta u qalqalin karaan ay u qalqaliyaan qodobkaas halkaasi caasimadda gobolka banaadir halkaas aan kaga gudbay waxaan dul istaagay qodobkayga kale ee Puntland horta ninka markuu hadda soo noqdo wuxuu rabaa inuu dastuurka Puntland furo mulaax markuu dastuurka Puntland furana wuxuu rabaa inuu yiraahdo madaxweynaha Puntland 2 teeran baa ku qoran inuu tartami karo inuu dhowr saddexaad baan tartamaya doorasho qof iyo codan aniguna qabanaya oo midda Xasan Sheekh kala ah banaana qabanaya oo Xasan qabanaya waaya yaa laga waay ilaahu marxanti ka ahaw Soomaaliya marxanti ka ahaw dastuurka Puntland fur 2 sano ku hartay 2 sano dastuurka Puntland ku fur beelaha Puntland degan waxba ugu qorin adiga shaatir kule ka dhigo oo talo laakiin bari yu ku galay waay marxanti ka ahaw Soomaaliya anigu Yaqub Saad baa la waxaan ogeyn kama hadlo bari adiga yu ku qaadi waay qabiil Puntland degan ama Umar Maxamed ha noqdaan ama Ciise Maxamed ha noqdaan ama Cismaan Maxamed qaarkii ha noqdaan ama Warsangali qaarkii ha noqdaan ama qabiilada kale qaarkood reer biciidyahan ama Cali Sareebaan qabiil ku dagaalama bari hawaay qabiil ku dagaalama oo bari dabadooda gasho oo waxaan huba aad aruurinayso aad ku safto oo ku difaaca hawaay أنا أنت سنقولها لكن هو الكاس هنا قصة أو عاد ضد كاس عرض كابناك تاجن على ترتنته حرام عليك بكاته دستور كبوت لأنه هذا فرته أو شات كل كتلته بريو كقاضي واي والصومالي مرخانتك هذا هذيك بري يوسف كقاضي واي أنا أنت كليا كلها يا اسم بوتلان بري تولي حد ما قال له تدي ويلك ولا الكا حسن دني قراء الله شيء كيستين محاطر هذين سويدي هذا يري أنا ما لي هنا وحا كل شيء كيسنة سنة إنك قصلي يا ولي أنا يقول لك وحنا جميع لا واحد يقول لك نجيا لا وأنا يقبني ما تشيل حد دجال دعان بل عدة يحكي قبتان هلا عركو بل عدة ما أنت المشار كوقبته بوتلان أو دقالة كوقبته أو شقابور كوقبته أو وحكة كوقبته بل هلا عركو ولا شو جاي هذه ولا الكا تاجنتين وحنا يقول لك نجميع لا إذنكو عيل هاري أنت لو كنت أنتي كسمستي أو بير سمستي أو إيربورك بوساس وتل راحة كسمستي سو متى جندين أو حوري ومتى دعي نقولك إحنا جماعة يلان بالواي هلا أركينا يقولون سرح بنقولك حكي يلان هلا أركينا يحسش الأب قال نقولك حكي يلان هلا أركي يعقوب سيد إنه نقولك حكي يلان هلا أركو أسد إسمان ديانو إنه نقولك حكي يلان هلا أركو أسد إسمان ديانو إنه نقولك حكي يلان هلا أركو قلبك هلك سكيو قد بيا داعش تلو أولي شيء وأودوفيي محابيسته أو قتي waxaan aniga iga doqonsan kuwa hadda kadib daacish looga sheekeen doono kuwa
maxaabiista daacish intay soo qabtaan mulaaxa u keenayso u sii gato adigu ma daacish taba ka gadatid haddaa maxbuus soo dhiiba daacisha adiguba walaa la gado uu deegaankaaga yimaado hadduu deegaanka dishi yimaado dishow gata hadduu deegaan cali saleebaan kuwa ay yimaadaan idinkuba gata ilaa kan baa gadaya maxamuud saleebaan kan maxamuud saleebaan maxay dheeri iisha waxa wada dheeriya waxba ma dheera sababta meeshan sharcina kama jiro dowladna kama jirto nidaamna kama jiro kala dambeena kama jiro qof kasta oo qori gadan kara suu amaankiisa u sugtayna qorigiisa ha gato waaye waxaan dul istaagayaa meeshii boorama ahayd soo gabagabeynaya nimankii cisaaq ahaa weligay reer ka caqli xun oo ka liita oo ka waalanba oo ka maqfiradala waaba ii laabay waxay taagan yihiin annagu haddaa cisaaq nahay oo Soomaaliya siyaad baran ugu xasuuqay dadkeenni ma ilaaweyno diyaaradihii lafaha annaga dadkeenni ilaa ay waxaan geenaynaa Mareykanka ilaa ay maxkamadaha la tiigsanayna xataa Yacquub Siyaado jarmalka ku noolo ma Soomaaliya xataa waa jaajuusna Yacquub Siyaad oo dagaalkii la saxaana joogay oo maalinta jabeena joogay xataa jarmalka waa wada batayeenaayo waa jaajuusanaayo waa dacweynaayo dhiigeen waa qaaliyo wax aad lahayn aad ku dagaalamay oo deegaanka iigu yimi oo dhul hartiyeed iigu yimi oo la saxaana iigu yimi oo kun qof ku dilay oo qaar sariiraha saaran yihiin baa weli aad hargeysa jooga waxa taagan tahay ma dhul bahante xafladu ka maqan yahay annagu xaflad nooma aha ay dhiin inuu yimaado way dhul bahantay warsan gali kaba gudub dhul bahantay warsan gali maamul bay samaysteen ba halkaas ka dhig iyaga dad qabana ma waa reer daarooda weey xeer daarood xeer la dhahaaba jiro gobonimada caankeeda dagaalanka gobonimada qayb weyn ba ka yihiin xeer dhan baa qoran ba xeer daarood la dhaho laakiin ma waxaad hadda aqligaaga boorama dadkeeda ku haysataa oo allada calankayga lama dajin karo oo ciidamaan ku daabulaya oo xoog baan meedkooda ugu dulniikinaya kuwa boorama ka dhintay oo aad meesha ku dishay oo iyagoo mudaharaadaya oo waraf wata oo dhagax wata ay isbitaalada ugu galeysay waxa boorama ka samaysay laba jeer 90kii waxa ka samaysay Muuse Biix markuu aanu wax dili kara duca qaadan maayo marka uu leeyahay iyo maanta oo aad isbitaalada inta ugu gasho hooyooyinka aad ka dhigtay ciyaalka rajada ka dhigtay iyo kuwa aad agoonta ka dhigtay xitaa inta boorama tagay ay dhiin meega ku qabanay fariinta reer boorama dhageyso ama suldaan wabar soo xare ama heblaayo wabar soo xare boorame wax mudaharaad ah iyo wax ay dhiin meey ah iyo dabaaldega oo ka dhacay ma jiraan afka samaro ana kugu la hadlaya meesha samaro afkooda ana kugu la hadlaya ma jirto abadan wax ka dhacaya waa ay diideen dhalinyarada waa diyaar hubkoodi waa diyaar qaab kasta adiga ay daba dhilifka awaataan ula dagaalami karaan oo ula dagaalamaya waxaan halka marka la weyn duceynaya ninka cirra ah xaaladiisu waa serious way ninka meesha imaaraadka ahayd buu joogaa kansarka waxa lagu leeyahay waxa ku dhacay beerka kansarka oogadiisii dhan buu ku sifaafaya xaaladiisi way qarinayaan markaasay beenta alla reerka cisaaqa been badana oo barabugaanda badana oo hoogiya waxay taagan yihiin ninkan xogtiisa lama helo waa silent killer waa lama ogaado qoyskiisa kaliya raacay ma jiro madaxweyne waqooyi galbeed oo qoyskiisa u raaci jiray madaxweyne kasta oo waqooyi galbeed waxa raaci jiray dadkiisa waxa raaci jiray xukuumadda iyo waxa raaci jiray inta dawladdiisa ku jirta iyo inta la taliyaasha raaci jirtay laakiin arrintan inuu madaxweynuhu qoyskiisa raaco waa arrin ugub ah xanuunkiisana lagu qarinayo wey ereyga halka ku qor waa arrin lagu qarinayo xanuunkiisa laakiin anigu ku digan maayo waa xaaraanta waa suuradda uu dhinac maray ihdina siraada almustaqiim jidka gaalo iyo yuhuud baan kaa hoos galnay qofka muslimka markuu tukanay markaas hargeysa waxa la taagantaa yuhuud baa fiican Soomaali baa xun Soomaali baa saa xun Soomaali baa liidata Soomaali baa ka go'aya yuhuud baa raacaya halkan raacaya inkaarti way umada waxa ninkaas kansarka ku riday kaligiisna ma kulli madaxdeena xanuuno iyo si fool xun iyo si qaab daran bay madaxda waqooyi galbeed oo dhan u dhimata waana inkaartay umada ka galayso waa inkaartay gobolka banaadir la jeceshahay waa inkaartay shacabka boorama la jeceshahay waa inkaartay umada kale Soomaaliyeed ay la jeceshahay barnaamijkan inta kulmi doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi